waxaa magaalada Jigjiga ka dhacay kulan u dhaxeeya xukuumadda iyo aqoon-yahanka deegaanka oo ay ujeedadiisu ahayd ambaareynta iyo la dagaalanka argagixisada al-shabaab. aqoon-yahanka ayaana soo jeediyay talabixino lagula dagaalamaya argagixisada laguna xoojinaya amniga shacabka. markay jirto arrimo noocan oo kale oo argagixis caalami ah ay soo weerarto waxay samaysaa financially iyo physically labaduba. waxaa loo baahan yahay fikirkayga laba qodob oo muhiim ah si aan ila tahay. qodobka koowaad 12 gobol iyo 93 degmo in xukuumadda ka samayso dhalinyaro xukuumadda loyal u ah oo la tababaro oo hay'adaha amniga si fiican ula shaqeysa oo lahaansho leh oo ay ka go'an tahay inay habeenii maalin u soo jeedaan badqabka deegaankooda iyo dadkooda oo xukuumadda xoogga saarto. labo in la sameeyo midnimo guud. maanta midnimo guud baan sameynay oo macna ka samaysay geeska Afrika oo aan loo kala harin sida mataqaanaa waxyihiin ama sidii loo wajihi lahaa argagixisada caalamiga ah. taana waxay ku iman kartaa in shirarka la badiyo, wacyigelinta la badiyo, dhalinyarada la xusho oo aan mataqaanaa xukuumaddu aysan inta kaliya geedi socodka amniga iyo xukuumadda gudaheeda aan ugu deynin xukuumaddu ay bulshada iyo dhalinyarada xoog geliso. annagana haddii ka macallimiin ahaan weliba dadka aad takhasuska gaarka u leh ee political science-ka iyo social sciences-ka kala culunta kala fara badan bartay haddii ay TV-yada fadhiistaan oo bulshadooda la hadlaan oo dhalinyarta la hadlaan oo si gudul dadka in guri loogu fadhiisto oo degmo loo tago xilligan casriga waxa ka fudud ama ka sahlan in idaacad ama media lagala hadlo. marka taas inaanu qaadano dawladuna maaragta ay garab ku siiso madaxweyne ku xigeen markooda waxaan ka mahadcelinayaa dadaalka aad sameyseen isbuucii la soo dhaafay amniga iyo hogaamintiinu sida ay ahayd qabalayaasha u xiga xagga Soomaaliya caqabado badan baa ka jira telefoonka meelaha xuduudka haday waxa noqoto dhinacan wardheer iyo doolo ama ha noqoto xagaas hadda meesha dibku ka dhacayba inta badan afdheerba dadku waxay isticmaalaan telefoonada Soomaaliya. marka telefoonadaasna waxa gacanta ku haya control marna anteenada daminaya marna daarayna waad garan kartaan waa qolada cadawga ah saameyn bay ku leeyihiin. marka say suurtagal ku tahay si xogtu ay u noqoto xog si dhaqso ah loo helo adeegii telefoonka inuu dhulkaas gaaro. kulley waxa loo yimid in fikir la kala qaato oo maskaxda aqoonyahanka la maalo iyadoo la tixraacayo xaaladda waddankeenu hadda ku jiro. anu waxaan soo jeedin lahaa inta badan gaadiid baa ka shaqeeya deegaankeena, gaadiidka dadweynaha ee dadka qaada, dadka uu qaadayo iyo alaabta uu sido, kuwa gaarka loo leeyahay iyo gaadiidka aan sheegayo oo kale khaasatan meelaha ma garanaysaa risk area ee hot spot area hadda jirta in aad looga warhayo ayaan ugu soo jeedin lahaa. run ahaantii wixii dhacay weerarkii la nagu soo qaaday anigu xilligaa waxaan joogay goday baan joogay run ahaantii anigoo daawo u socda oo gaari jaamacaddu leeyahay wadana gaariganaga xitaa uu ka qayb galay ma garanaysaa adeegii. run ahaantii waxaan aad u bogaadinayaa madaxweynuhu arrintaa waxa uu ka muujiyay waa wax la yaab la yahay sababtoo ah dagaalkii oo socda ayuu dhex taagnaa halkaas ummadii marka qof walba kala madaxweynuhu arkeen qof walba kaalintiisa ayuu qaatay si aad iyo aadana waa looga qayb qaatay. run ahaantii marka aan qiimeeyo sidii looga qayb qaatay isma aan lahayn sidana loo gurmanaya ama dadku sidan u yeelaya ama dhulka remote-ka sida adeeg looga helaya waxa kale ma jirin. gaari kasta oo ka qayb qaatay qof walba markuu maqlo Mustafa jooga dhinacun buu ka ordiyay xitaa kuwa ariga la joogay annaga joognay. marka run ahaantii aad baan u bogaadinayaa madaxweynuhu hawlgalkaas si sharaf looga qayb qaatay. inkastoon ma garanaysaa isyar iri noolaha madaxweynuhu beerahan hadduu Soomaaliya u isaagi lahaa Soomaalida oo dhan ma garanay beeraha way noo fiicnaan lahaayeen. marka madaxweyne waxaan ka codsanaynaa siyaasad kasta oo doonaysa inaad hirgeliso inaad dhex istaagto arrinta inaad u qaadataan ma garanaysaa maxaa yeelay dadku way ku wada dayanayaan sidii hawshan aad u fulisay aad baad ugu mahadsan tahay. tan kale run ahaantii hawshaas si fiican baa looga qayb qaatay. taa haddaan ka soo gudbo macallimiinta horta hal arrin baa la jirta xukuumadana laba qodob baan ku waanin lahaa. macallimiinta waxaa la jirta dadkan aad wax bartaan wadaniyada inaad uga sheekaysaan baa la rabaa. had iyo jeer macallinku wuxuu weeyaan waa tusaalihi ugu wanaagsanaa ama qofkii waalidkii labaad ee ardayga weeyaan.
haddii ardayga aan looga sheekaynin wadaniyadda oo galaasun loo dhigo wax macno ay samaynaysaa ma jiro waa in ma garanaysaa wadaniyadda qaabka uu approach garanayo waa xaaladda lagu sugan yahay wax looga baahan yahay waa in ma garanaysaa macallinku arrinta uu qaato xukuumaddana waxaan odhan lahaa maadaama had iyo jeer terroristiga iyo dadkan argagixisadu ay ka faa'iidaystaan disorderrada iyo waxoogaa buuqbuuqa inagu intii buuqa la damin lahaa ee tusaale ahaan dhalinyarada la wacyigelin lahaa ee sida hadda ragga qaarkood sheegeen xashiishada iyo waxyaalaha ma garanaysaa upset mindiga in laga hortago shaqo abuurka la sameeyo shaqo abuurka laftigiisa in si factis oo wax soo saarka lagu saleeyo social serviceka lagu saleeyo sida gurubaysiga ee ma garanaysaa looga hortagi lahaa iyadana in la sameeyo arrintaasaan soo jeedin lahaa qodobka kale waxa weeyaan يعني markii nidaamkani uu yimaado dad badan baa si adag uga faa'iida ama kicida qofkii isagoo leh waa shaqeynaysaa yaa laga yaabaa inuu haddana si kale indirect ah ma garanaysaa oo ma garan waxbay adadkeeyaan arrimahana si nabadaha lagu wado nabadgelyadu si fiican baa u socotaa waan ku faraxsanahay madaxweynaha iyo maamulkiisa iyo xukuumaddiisa inay la kulmaan aqoon-yahanka kala duwan ama kuwa jaamacadda macallimiinta ka noqdaan ama kuwa jaamacadda bannaanka ka noqdaan marka intii 100 qof ama 500 qof lala kulmi lahaa miyaan ka sahlanaateen core group kulminaya oo soo analyze gareeya xaaladda dabeedna la kulma gudida tala bixinta ama gudida ammaanka ama madaxweynaha noqoto ama xafiis gaar ah noqotee inay la kulmaan oo ay tala bixintooda u soo gudbiyaan halkii 500 qof ama 600 qof ama 100 qof lagala kulmi lahaa tiro kooban oo urursan oo taladu soo darsay si waaqici uga soo dooday dabeedna baanal qoraal loo soo gudbiyo oo xukuumaddu marka ay la jaan qaado marka tan oo qura maaha tay ugu dambaysan ku soo gabagabeynay waxa weeye xagga socialka haday noqoto dhaqaalaha haday noqoto waxyaabo fara badan oo dawladnimadu ay ku dhisan tahay in gudiyo saasa oo dadkii khabiirada u ahaa ama ehelka u ahaa in la hordhigo ay ka soo doodaan dabeedna loo gudbiyo xukuumadda iyo hadba cidii taladu ay ka go'ayso aad baad mahadsantiin ugu horeyn waxaan rabaa inaan halkan ka soo jeediyo cambaareyn aan u soo jeedinayna ururka argixisada ee ku soo duulay deegaankeena ee dagaalka qaawan ku soo qaaday waxaan rabnaa inaan taageero u muujino xukuumaddeena talaabada ay qaaday ku aadan sidii loo ciribtiri lahaa ururkaas argixisada ee deegaankeena ku soo xadgudbay waana bogaadinaynaa xukuumadda talaabada ay qaaday iyo waliba geesiyaasha liyu booliska guulaha ay ka soo hooyeen la dagaalanka argixisada caalamiga sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan ka muujiyo taageeradii runtii ay shacabka ay muujiyeen xiliyadii dagaaladii ay socdeen runtii waa mid bogaadin mudan maadaama iyadoon cidna ayna mataqaanaa abaabulin cidna isu keenin bulshada iskeed isku abaabushay taageero dhaqaale iyo moraal basugu jira ay u muujiyeen runtii waa arrin u baahan mataqaanaa in la bogaadiyo lana sii xoojiyo wada shaqaynta shacabka iyo laamaha amniga iyadana waa mid u baahan in la sii xoojiyo tusaale ahaan qabalayada magaalada kale tusaale ahaan waxaad moodaa inaan iska warqabin haddii dhibi dhacdo in mataqaanaa qabalayga laftiisa uuna mataqaanaa ku xirnayn xaafadaha tusaale ahaan xaafadaha kale in la isku xiro oo horjoogo loo sameeyo horjoogahaasna uu uga warbixiyo wixii xaafadda ku soo kordhay waxaa laga yaabaa qof inuu ku soo kordho aan hore u joogin xaafadaas ama aagaas in mataqaanaa immediately isla markiiba uu la xiriiro laamaha amniga taasna waxaa loo baahan yahay in la sameeyo tusaale ahaan hotline wax la yiraahdo haddii aan rabo tusaale ahaan inaan laamaha amniga aan la xiriiro xageen kala xiriiraya telefoon ma hayo ama email ma hayo ama whatsapp ma hayo marka waxaa muhiim ah xaafad kasta in uu jiro hotline ay kala xiriiraan laamaha amniga ama qabaleega si ay ugu wargeliyaan waxyaabaha ku soo kordha xaafadaha ay degan yihiin laba tusaale oo sanadkan inagu aynu maamulkeena dawladda iyo shacabka ay sameeyeen mid waxa weeyaan abaarihii sidii aan uga hawl galay dadka maaragtay dawladda iyo shacabka iskugu maaragtay u wada shaqeynayeen waa arrin bogaadin mudan in lagu daydana mudan qodobka labaadna waxa weeyaan arrintaas hadda markii ay nimanka argixisadu inagu soo qaadeen sida ay shacabkeenii iyo ciidankii iyo dawladdii hal meel uga soo wada jeesteen marka arrimaha noocaas oo kale ah waxaan odhan lahaa underline aan ku samayno wixii aan hawl inaan qabanno aan rabno oo kale aan ka gun gaadhno markaaba aan rabno qaabkaas oo kale inaan u qabanno marka arrimahaas waa kuwa aan bogaadinayo runtii aadna aan ugu mahadnaqayo maamulkeena iyo shacabkeena leeyahay ilaahay ha ka abaal mariyo saddexda qodob ee soo jeedinaya waxa weeyaan midda koowaad
magacyada aynu u adeegsanayna cidda inagu soo duushay magacyay leeyihiin iyagu magac bay isku yaqaanaan adduunyada iyo dadka ay la dagaalamayaan magac bay u yaqaanaan marka magaca loo yaqaano dadka ay la dagaalamayaan waa inaynu adeegsano ama argagixisaan adeegsano ama khawaarijaan adeegsano wixii maaragtay ama kuwii ummadda gumaadaya waxaas kale yani in la adeegsado qodobka labaad ee aan ra'yi ahaan ku soo jeedinayo waxa weeyaan taariikh ahaan xagee ka soo jeedaan xagee ka yimaadeen waxa ugu horeeyay cid qof muslina masaajid ku disha nimanka khawaarijta loo oran jiray waqtigii Ali bin Abi Talib bana lagu dilay naftiisa oo nin masaajidka dhex jiifo Cabdiraxmaan bin Muljam la yiraahdo go' ku duuduuban iyuu ku yiri war xilligan lama jiifsan looma jiifsaday ka kaco salaada tuko kolku salaadii sunnah ahayd imaam Ali radiyallahu anhu galayna xagga dambu seefka ka dhuftay madaxa qaybta dambe iyuu ku gooyay marka u fiirso ninka masaajid ku dilaya nin 10 mubashiriintiya oo nabiga in adeerkiya oo gabadhii nabiga waliba qabay Faaduma bint Muhammad qabay ku dhex dilaya masaajid yaa la mid oo maanta sameeyo masaajid dadka ku dhex dila marka yani magacaas waa iskeenaya marka khawaarijinaad u adeegsato كبات وحن بقادين إن حكومة الدولة ديان الصومالية وحلوه الرجال ذلك بدنا يكجلين الدجالين كار جحسدا يسيدي أيديا كود دفاعين وحن كانوا جماعة علينا بريان دم بأباب الكبرشة سوشيال موازيك أوضان إلا كل من قيمها كالدوان البرشة هذين قطع الماضي ويوجنكي دلنيرتي أقويانكي تازن وين بوين تدله أو لو بعد متقنع إن برشدو أي حكومة فكر لو ذاكان sidii aynu uga hortagi lahayn khatar kasta oo ku soo wajahda deegaankeena waa arrin muhiim ah oo talaabo muhiim ah xukuumaddu qaaday waxa loo baahan yahay midaas marka inaynu ku ekaan jigjiga oo kale caasimada deegaanka in la kaaskeed gareeyo la dhiciyo ilaa heer qabale ilaa heer magaalo degmo la dhiciyo ayaa loo baahan yahay oo bulshada wacyigelinta nimanka khatartooda iyo sidii dadku uga fikiraan lahaayeen in la dhiciyo hoos loo dhiciyo ayaa loo baahan yahay أنا waxaan ku soo kordhinayaa laba ra'yi dad waxa jira meediyaha iyo soo fadhiisto oo ra'yiyo iyo fikrado xun gudbinaya soo annaguna waxaan u baahanahay inaan sameeyno saxaafadeenu inay sameeyso barnaamijyo sheegaya dhibaatada argagixisada ay ka sameeyso wadamada jaarkeena sida Soomaaliya oo kale ay ka geysatay laba culimaduna inay sameeyso barnaamijyo ay ku bogaadinayaan inay dadkani ahayn dad u dagaalamaya diin oo dad ku dagaalamaya magacii diimeed ay iska dhigayaan shaarkii diimahana xidhanayo iskala dhigay inay diin ahaan u dagaalamayaan mid kale hal talaan ku soo kordhin lahaa hadana si ay amnigeenu u adkaado waan ognahay xaaladda uu wadankeenu deegaankeenu maanta ku jiro soo si ay amnigu u adkaado waxaan soo jeedin lahaa tala dadkan muruqmaaladan soo hayaamaya ee wadanka soo galaya in loo foojignaado oo baaritaankooda uu noqdo zaid sida naagaha imika kale shaqaalaha la kireeyo oo kale kama warqabno dumarku way soo kireystaan already xataa mustaawaqa male totally waan kireysanaa qiimaha la doonaa waliba la ilaahdaa taasoo kale iyo muruqmaaladan kale ee soo galaya in loo foojignaado lana controlo qabale kastana lagu xidhnaado xafiis kasta uu qabaleeyada ku xidhnaado haday tahay annaga intaanu isqaybno qof afartii qof uu qabaleegu jooga la shaqeeyo aan daba gallo ayaa loo baahan yahay soo amnigeenu adkaado talooyin yar oo baan rabaa inaan ku daro dhamaantii waxaan ognahay in cidda markay dib dhacdo ugu horeysa ee dibta ay ku dhacaysa waa shacabka marka shacabku inay la shaqeeyaan ciidamada iyo dadka amniga ka shaqeynaya una fudeydiyaan xilliga ay ku jiraan shaqooyinkooda gaarka sida baaritaanka iyo wixii la mid ah shacabku ay garab istaagooga sii wadaan xukuumaddu shaqo fiican bay qabatay iyadana waan ugu mahadnaqaynaa dhaliil way jirin mar walba oo shaqo markii la qabto dhaliil waa iman dhaliil lama diidayo meesha shaqo taal dhaliil baa taala mar walba ma kala hadhaan labadaasi marka waan ugu mahadnaqayaa xukuumadda waxa kaloon halkan ka sheegaya dhammaan afkaartiisa la soo jeediyey nin aad soo dhaweynayo una arko inay yihiin afkaar dani noo waxa kaloon iyada raba inaan ku baraarujiyo si guud bulshada macallimiinta iyo aqoon-yahanka xukuumadda iyo aan kala garanno iyo danteena dad xukuumadda inay mucaaradaan raba yaa marar fara badan waxay la gashaa meelo qalocday la gashaa
danta guud mar walba dad u midooba oo dhibaatooyinka noocan oo kala mid ka ah hal aragti hal ujeedada ka qaata inaan noqono waa talada guud ee soo jeedinayo